abiyaasha xafladda in magacayaashooda ay kala yihiin Khadrab Maxamed Geelle, Cabdullaahi Maxamed Geelle, Maxamuud Yuusuf Xaashi Bowdo iyo Xuseen Jaloose oo xafladda noo soo qabanqaabiyay aad baa u mahad celinayaa anoo magacooda ku hadlaya dhammaantiina aad baan ku mahad celinayaa ku soo dhawow ninka la yiraahdo Nabadoon Macallin wala tafadal mashkuura. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadweynaha sharafta badan ee halkan ka soo qayb galay rag kale dumar kale gabdhaha madaxda aqoon-yahanada uqaasha odayaasha culimada dhalinyarada dhammaantiin aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh aniga war badan meeshaan layma istaajin inaan xafladda furo unbaa mataqaanaa kaalintaas baa laygu aadshay mana doonahay inaan kusii dheeraado dhammaan dadkiinaan xafladda kasoo qayb galay oo soo ajiibay aada iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa mahadi ilaahay ha u sugnaato ilaahay bay u sugan tahay laakiin idinkana waa idin mahad celinaynaa intaa waxaa dheer meeshaan maantay xafladdan waa xaflad aada iyo aad u sharaf badan u qiimo weyn waxay kulansatay xafladdaanu dad aada iyo aada u kala duwan baa isugu yimid haddii aan wax yar tafaasiil yar aan ka bixiyo waxa weeye gabadha maantay xafladdeeda meeshaa lagu dhigahayo waxa weeyaan waxay leedahay dad kala duwan oo qaraabadeedu aada iyo aad bay u kala duwan yihiin oo tiro badan yihiin marka dhammaan qaraabadaas oo noocyada badan leh aad baad u mahadsantihiin waxaan barahayaa nimankaan reer awowayaasheeda ahaa u sheegayaa gabadhu gabar qaraabo badan inay tahay laba qolo oo waxaa mataqaanaa haddana abtiyaal iyo adeerbow ah laba qolo mataqaanaa madax ah oo madaxda cidda ahaan jirtay asal ahaan kasoo jeeda waxaa intaa dheer gabadhu waxay leedahay laba abti oo ayadana mataqaan laba dhinac kala socda waxay leedahay adeeryaal baa jooga abtiyaal baa jooga marka intaas oo dhan kusoo dhawaada ku qaata sidaasaan maarta xafladduna waa noo furan tahay isbarasho wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبضون مهد وحشة قبلنا إلى احتيال أدريال أبويال كل أي دوبيهين wiilkana kuley waa nala sheegi doonaa intii ka joogta ayagana waa nala sheegi doonaa waxaan rabnaa inaan markaa sii guda galno nikaaxa iyo arooska meesha ka dhacaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tanaakaxuu takaaharu fa innii mubaahin bikum umama yowma qiyaamati iskuursada aad badataan hadhowtii qiyaamaha aan idinku faano nabiyaal waxay imaan doonaa laba wata saddex wata isagu marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay beriga yimaadaan faan bay u tahay marka saas waa inaan la camiro la soo camirana waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam horey ayaan kasii wadaynaa waxaan rabnaa inaan u yeero nabadoon Cabdullaahi Bariise si uu xafladdan muraadkii loo yimid uu u sheego ayaan kusoo dhaweynaa falatafada. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan marti sharafta halkan timid ee soo ajiibtay martiqaadkii loo fidiyey magac kasta iyo mansab kasta oo aada leedihiinba waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa ka bacdi xafladda hore loo sheegay waa xafladdaas arooska ah waa wiil iyo gabar soomaaliyeed muslima soomaali ah haddana inta badan soomaalidu waxbay kala qaqaadahay jifo hoose isku ah kulmisana inta soomaalidu ay ka kooban tahay sida la sheegay oo abtiyaal badan adeerayaal badan habaryaal badan iyo intaanoo hadda ninba magac uu ku yimid nin saaxiib ku yimid nin dares ku yimid nin ku yimid qaraabanimo intaba marka waxaa anigu ka wakiila wiilka la yidhaahdo Cabdirasaaq Cali Colow waxaan rabnaa intaas oo ay kulmisay oo qaarna uu maqan yahay qaarna inta badan inta halkan ay joogaan iyo inta soomaalida ay halkan joogtaba
iyo ehelka ay ka dhalataba runtii oo hoose. waxaan ka rabnaa gabadha magaceeda la yidhaahdo ayaan cusmaan xaashi oo aan u rabno wiilka la yidhaahdo cabdirasaaq cabdi colow cabdicasiis waa ku qaldamay cabdicasiis cabdi colow. waxaan u wararnaa si sharaf ku jirto, islaamnimo ku jirto, soomaalinimada ku jirto, dhaqanka soomaaliyeedna ahaan jiray in wiilka iyo gabadha anoo ka wakiila wiilka, maadaama dadka soomaaliyeed ay xafladaha noocaana dhammaantood cidna uusan ka maqnayn oo cid walba ay timaado, haddana waxaan codsanaynaa intaynan meesha joogta gabadhina inaan doono wiilkana aan siino. marka anigoo idinka wakiila waxaan rabaa in doonistaydaas layga aqbalo. waana mahadsantiin insha allah. cabdullaahi bariise aada buu mahadsan yahay. cabdullaahi bariise aada u mahadsan yahay, codsigaas soo gudubsaday. waxaan rabaa inaan ku wareejiyo asagoo inta kalena kolley ka wakiil ah nabadoon cabdullaahi salaad la wareega arrintaas jawaabteeda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وطلع الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا إلهي رحمة الله إسلام